madaxweyne farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo maamulayaasha galmudug iyo hirshabelle qorqoor iyo cali guudlaawe kulanka oo ka dhacay filla Soomaaliya ayaa daba socday kulan habeen hore ay saddexdan la qaateen midowga musharaxiinta mucaaradka markii habeen hore la isla fahmay in ra'iisul wasaaraha la siiyo awoodda doorashada amniga iyo maareynta xilliga kala guurka maamul goboleedyaduna soo saaraan qoraal ku saabsan in Rooble hawsha daadiyo ayaa Axmed Qorqor ku dhagay arrinta qorqor ayaa codsaday in marka hore ay farmaajo ku laabtaan oo ay u sheegaan inay mowqifkaasi qaateen kuna soo qanciyaan in awoodda doorashada iyo ammaanka dalka uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha xalay ay arrintaasi ula tageen farmaajo jilaayaasha siyaasadda ee Soomaaliya waxay sheegeen in kulankii xalay uusan si weyn u mir dhalin farmaajo waxaa loo jeediyey inuu Rooble ku wareejiyo maamulka iyo awoodda uuna tartamo iyaguna ay garab istaagi doonaan si looga badbaado inay dagaal kale ka dhacaan magaalada Muqdisho waxaase uu farmaajo ku dooday inuusan hadda arrintaasi go'aan ka gaari karin oo uu u baahan yahay inuu baarlamaanka taga Sabtida uuna jeediyo khudbadda la xiriirta inuu shaqayn waayay qaraarkoodii 2 sano waxaa la sheegay inuu farmaajo ku dooday in haddii uu arrinkaasi aqbalo in loo arki doono inuu yahay in laga adkaaday sida laga soo xigtay mid ka mid ah labada hogaamiye goboleed ee ka qayb gala kulanka farmaajo diidmo weyn kama muuqan oo si toos ah uma diidin inuu Rooble ku wareejiyo maamulka doorashada iyo awoodda ciidanka iyo inuu iclaamiyo shirarka laakiin wuxuu u muuqday nin wax kale u diyaar garoobaya saddexda nin ee qorqor cali guudlaawe iyo Rooble ayaa ka aqbalay farmaajo inay sugaan muddada uu qabsaday oo ah ilaa iyo Sabtiga oo berri ah markaas uu baarlamaanka tagi doono Rooble qorqor iyo cali guudlaawe dagaal ku talagal ah kulama jiraan farmaajo waxayse u muuqdaan niman duruufo ku qasbeen go'aanka ay dhawaan qaateen iyo halka ay soo istaageen si gaar ah qorqor waa ninka weli jilbaha ku dhagan Rooble iyo guudlaawe ee raba inaan farmaajo laga tagin lama fahamsana faa'iidada gaarka ah ee uu ku qabo in farmaajo la sii joogo laakiin mar walba oo la isku dayo in go'aan la qaato waa qofka qura ee jeediya in farmaajo loo tago oo lagu soo qanciyo go'aanka farmaajo isagoo ka faa'iideysanaya dabacsanaanta ay weli u muujinayaan saddexda nin ee ay cadaadiska saarayaan beesha caalamka mucaaradka iyo qabaa'ilka deegaanku wuxuu marar badan ku guuleystay inuu bedelo ahdaaftoda oo dhan kulankii xalay kadib waxaa laga cabsi qabaa inuu farmaajo adeegsado farsamooyin cusub iyo kala furfurid walaaca laga qabo inuu farmaajo isku dayo inuu berri isku fasaxo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha ayaa weli taagan maadaama aanay Rooble qorqor iyo cali guudlaawe weli dagaal rasmi ah la gelin farmaajo oo ay yihiin rag duruufo qasbayaan waxay xubnaha mucaaradka iyo askarta diidan muddo kororsigu wadaan diyaar garow la xiriira in wax walba ay meeshooda ku laabtaan haddii la isku dayo in la majaxaabiyo dadaalada socda cali guudlaawe iyo Rooble waxaa la sheegay in iyaga si weyn uga go'an tahay in jihada farmaajo toos looga guuro laakiin ninka isku haya farmaajo iyo labada kale ee maalin walba ku dhagan waxaa la sheegay inuu yahay Axmed Qorqor oo aan weli si dhaba loo fahmin waxa ku riixaya inuu farmaajo ag joogo dadka Soomaalidu waxay badi isha ku hayaan kulanka berri ee baarlamaanka maadaama uu farmaajo xalay qabsaday inuu kulanka Sabtida kadib u diyaar yahay inuu xubnahan kala doodo sida ra'iisul wasaaraha loogu wareejin karo awoodda doorashada shirarka iyo ammaanka dalka maxay kula tahay